labada kaalimood ayaad bulshadan ku leedahay in dowladda iyo ummaddu waxay kaa sugaysay kaa hesho, waalidkii ku dhalay iyo ku korsaday wuxuu kaa sugayay inuu kaa helo. labada kaalmood si lagaaga helo waxaad u baahantahay kow ugu horeyn inaad caqiidadaada dhisto iyo diinkaaga. maxaan caqiida iyo diin ugu horreysiiyey? caqiidada iyo diintu waxay yihiin qofka waxa ka ilaaliya afkaarta haddaamka ah. dunidan sharka iyo khayrku way baratamayaan, sharka iyo khayrku loolan bay ku jiraan. waddankan aad joogtaan bulsho wax duminaysaa waa joogtaa oo rabta inay safkeeda kugu darto, oo drug dealers leh, oo tuug leh, oo dad aan mustaqbalka oo tuuga leh, oo aan mustaqbalka waddanka ka fikerayn waa joogaan. cagsigeeda waxaa jooga bulsho iskuulla kuu samaysay, oo jaamacad samaysay, oo goobo laga shaqeeyo samaysay, oo waxa ka samaysay, oo rabta inaad horumarto. labadaa bulsho koox waliba waxay jeceshay inaad iyaga ku biirto, koox waliba inaad iyaga ku biirtaa bay jeceshay. maxaa kooxda wanaagsan kuu dari kara qofka muslimka ah? koox waxaa kuu dari kara inaad ka nabad gasho mufsidaadka, waxyaabaha dadka fasahaadiya. meelaha xanuunku ku badan yahay maxaa la sameeyaa? qof bini aadama haddii loo dirayo meel xanuun ku badan yahay, waxa koowaade laga fekeraa waxa weeyaan waa tatciim, waa vaccination, soo maha? in qofka la tallaalo. oo waxaa la leeyahay qofkani bulsho aan caafimaadkeedu fiicnayn buu ku dhex jiraa, marka waa inuu ka tallaalaadaa xanuunkan uu rabo inuu bulshada ka daweeyo. adigoo aan tallaalayn haddii lagu yidhahdo dadka daweeyo, waxaa fududaanaysa inay aadna ku qaadsiiyaan. maxaa tallaal u ah qofka muslimka? waxaa tallaal u ah caqiidada saxa u helo. caqiidada saxi waxay sheegaysaa maxaad u noosha, dunidan maxaad u timi, xaggaad ku socotaa, maxay noloshaadu ku dambeyn doontaa. haddaad atheist qaadato, atheist noqotid, nimaan ilaahayba rumaysnayn, diinba rumaysnayn, waxaad noqonaysaa insaan aan garanayn meeluu ka yimi iyo meeluu ku socdo. meeshaad ka timi waxaad isaga haysataa daayiradiiyo kuwa ina walaala ahaydeen oo awow hore idin wada dhalay. meeshaad u socotaana waxaad u haysataa ciidan kaa hooseyso oranayto waxba kale ka dambaynin. marka nolosha o dhan waxaad u haysataa nolol aan qiimo badan samaynaynin, nolol aan qiimo badan samaynayn. laakiin qofka muslimka caqiide islaamiya haystaa wuxuu rumaysan yahay dunidan inay hadaf leedahay, ilaah abuurtayna inuu jiro, adigana in shaqo laguu diray ah inaad rabbigaa caabudo, cibaadadiisuna inay tahay waxa hagaajinaya adduunkan inaad qof mutma-in oo degan oo xasiloon oo caqligiisa qaba ku joogtid, xoogsatid oo noolaatid, aakhirana aada janno geli kartid. inta aada timeka haysato, inta aanad mashquulin. qofku markastoo da-diisu sii kortaba mashquulkiisaa sii bata, waktiga keligii ma yeesho. qofku markuu dhalinyarada yahay waktiga keligii baa leh, cidi lama laha. caruur ma maamushid, cid kale ma maamushid, naftaadunbaad maamushaa. mas-uuliyaad weyn oo ku saaran oo cid kale kaa sugaysaa ma jirto. laakiin markay da-du soo korodho, markaad 3 caruuro dhashid ee lagu yidhaahdo lagsayalkuu kala shaqee, 3dooda saacadood la shaqeynaysaaba dhib kugu ah. idan markaa waad mashquulaysaa, waktiga waa lagula leeyay. bulshadu waxbay kaa sugaysaa, reerku waxbuu kaa sugayaa, carruurtu waxbay kaa sugaysaa. hadda waktigaagu tiro badan yahi, wuu yaraanaya. laakiin markaad dhalinyaro tahay 24 saacadood adaa iska leh. laakiin haddaad ka dhigto inaad seexatiyo inaad boodboodo bes, waad khasaaraysaa. in hurda iyo in boodbooda haddaad ka dhigto waktigaagii o dhan. markaa nabigu wuxuu ina leeyahy alayhi salaatu wasalaam, firaaqadaada ka faa-iidee inta aanad mashquulin. dadka barh baa firaaqadii iyadoo xanuun ku noqotayba, oo laniya maxaan qabtaa, waktigii waxaan ku dilaba waa garan waayo. waa qofka marka hadafku ka lumo, intuu soo toosa wuxuu qabtaba qofka bini aadamka hadduu garan waayo, waa qof aan hadaf lahayn, meelus target ma lahayn. hadafku waa target, yool aad ku socotay ma jirin, marka waxaad garan waayeysaa dee waxaad qabato. laakiin haddaad target lahayd, waktiguba waa cidhiidhi. jadwalkaagii markaad eegto maanta waxan baad qaban lahayd, waxan baa ku sugaya, waxan baad akri lahayd, meeshan baad tegi lahayd, ciddan baad caawin lahayd, jadwalkaagu waa buuxaa.
laakiin marka aanad hadaf ba lahayn jadwalba ma lihide subaxi markaa soo toostaa ma sodhaysa anigo saaka maxaad qabataa hurdada ma iskaga noqotaa waa ka wanaagsanaya aan islahayn suuqa ma gashaa wax uu qabto markuu waayo tolo iska seexdaaba nabigu wuxuu kaloo yidhi shabaabak qabla harimik ka faa-ide dhalinyaronimadaada intaanad gaboobin marka la gaboobo ama wakti lasoo gaadho caqligu wuu bataa laakiin jirkaa ku gabaya wixii aad ka fikeraysay ma wada qaban karaysid wax qor baad isleeday in yar haddaad qorto waad daalaysaa wax akri baad isleeday in yar haddaad akri waad exhausted baad soo gaadhay wakti uu jirhkii kuleeyahay waxaan ma qaadi kara baad joogtaa caqligiise uu kuu batay oad is leedahay malaa wax badan inaad qabato ay ahayd dhalinyarada waa cagsiga inta badan caqliguna wuu korayaa jirhkuna waa markuu xoogan yahay waxaad rabto waad qaban karaysaa everything therefore waktigaad wax qaban karaysay haddaad waxba qabsan weydo hadhow waad calaacali wey berigaan dhalinyarada haddaasa waxaad qof aragtaan waa professor cilmuu leeyahy kan buu leeyahy macnaheedu waa maxay waktigu dhalinyarada habuu dadaalay weeyaan waktigu dhalinyarada habuu wakti bixiyey ilaan inta la riyoodo habeen inta la seexdo professornimada laguma riyoodo ama dhakhtarnimo inta la seexdo laguma soo riyoodo ama xoolo inta la seexdo laguma soo riyoodo laakiin waa maxay waktigii uu baahnaa inuu wax invest gareeyey harvest waktigii wax la goosanayana waxbuu goosta haddaad waktigii wax la beerayay seexatid maxaad u malaynaysaa inaad goosanayso dee markay dadku beeraha goosanayaan taad way engegnaanaysaa illa waxba kumaad ridin waktigii la rabay inaad ku rideen dhalinyaronimadu waa waktiga la rabo inaad wax harvest inaad wax beertid laakiin dhalinyaradu waxay isweydiisaa inta badan waa dee inaan shaqo tagaabaan karo war shaqadan iyo waxaan 10 sanadood ood soo xamaalaysay 2 sanadood 1 sano aad profession ku shaqaysaaba ka lacag badan 10 sano waxaad xamaal ka soo waday 1 sano markaad soo baxdo aad profession leedahay waxa ku soo gala waa wixii 10 sano ba ku dhaafay 1 sanaad ku keeni kartaa laakiin yay kula macaananay 5,000 iyo 10,000 hore idan waxaad u baahan tahay waqtiga kani waa waqtigaad investment ka sameysanaysay waa waqtigaad wax maal gashanaysay maxaad maal gelinaysaa cimrigaaga waxa laga rabaa inaad maal gelisaa waa cimriguna waa maxay waa secondiskan iyo minuteskan iyo saacadahan weeyaan cimriga lagu sheegaya waa inta markaad leedahay 20 sano aan soo jiray macnaheedu waxa weeyaan intaasoo minute iyo intaasoo second iyo intaasoo saacadood baan soo joogay maxaad ku qabatay haddaad wax gelisay harvest ugu fiicnaanayo goosashadu way fiican tahay haddaad waxba gelina ma fiicnaanayso saa daraadeed buu nabigu wuxuu leeyahay shabaabaka qabla harimak wa ghinaaka qabla faqrik markaad ghaniga noqotana inta aanad faqiirin ka faa'iidaysan leeyahay markaad hanti hesho cilmi hesho garaad iyo aqoon hesho wuxuuba waa qaninimo waa nimcooyinka ilaahay ka mid oo ilaahay ku siiyey markaad cilmiga heshay haddaad waxba ka faa'iideyn weydo la seexatid cid bari weydid cid wax ku anfici weydid waxba tari weydid ma fi faa'ida manfac badan ma leh idan waxaad u baahan tahay inaad ka faa'iidaysid walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay aakhiro laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama qofnaba labadiisa adin meeshuu taagan yahay aakhire kama dhaqaaqayaan meel baa saa lagu qotominaya tallaabo laguma ogola ilaa aad su-aalaha soo socda ka jawaabtid mooyaane su-aalaha lagu weydiinaya aakhira waa maxay waxaa lagu weydiinayaa cimrigii maxaad ku bixisay cimrigaagii maxaad ku bixisay cimrigu waa inta aynu noolnay ee saacadale ee sanadale ee bilale ee caynkan saacad kasta oo kaa khasaartay aakhiro dhib bay kugu haynaysaa saacad kasta oo aanad waxba mid adduuniya mid aakhira toona shaqaynayna aakhira dhib bay kugu haynaysaa saacaddaad xataa tarfiiha samaynayso saacaddaad nafta picnica yara gelinayso waa inay noqotaa saacad macnaheedu yahay ta dambe si ay midho badan u goysid waayo haddaad shaqada isku xidhiidhiso saacadahaaga dambe waxay noqonayaan saacadaan midho badan dhalaynin maalan waxbaad akhriyaysa 2 saacadood baad akhriyaysa waxaa laga yaabaa saacadda ku xigta waxaad akhriyaysa inaad wax yar ka fahamtid laakiin haddaad in yar tanshiid yara samayso koob shaaha yara cabtid wax yara qabatid waxaad kusoo noqon kartaa adigoo maxay haddana more energetica marka saacadda xataa aad tarfiiha samaynayso ama aad cayaar tegaysa ama waxaad qabanaysaa waa inay noqotaa
saacadaad ugu tala gashay inay ka midha dhaliso maxay saacadda ku xigta oo aad more energetic adiga oo nashiita aada wixii kusoo noqotid. waxaa lagu weydiin doonaa wixii aada shaqaysatay xaggaad ka shaqaysatay, ma xalaal bay ahayd, ma xaaraan bay ahayd. waxaa kaloo lagu weydiin doonaa wixii ku soo galay haddaabay xalaal ahaayeen xaggaad ku bixisay markii dambana, ma xalaal baad ku bixisay mise xaaraan baad ku bixisay. waxaa kaloo lagu weydiin doonaa wixii aada cilmi baratay maxaad ku qabatay, mid addunya mid aakhira maxaad manfac ka keentay. idan ayuha alikhwa, qofka dhalinyarada waxaynu leenahay dowrka lagaa rabaa ee waalidku uu kaa sugayo koowaad waa labadan shay. waa inaad mutadayin noqotid, inaad ilaahay ku xidhnaatid, waalidkaana way farax gelinaysaa, raalli ahaanshihiisaad helaysaa, raalli ahaanshiye allana waad helaysaa subxaana wa tacaala. ka labaad inaad waxbaratid, tasallux bilcilm, waalidkaana inaad shaqadaadii hayso u arkaya, bulshaduna inaad shaqadii lagugu talagalay haysaabay u arkaysaa. bulshada dabadeed way ku caawinaysaa oo dowladdu waxanay waxbarashada bilaash uga dhigtay ee maalka kuu siinayso ee istambediga lagu siinaya waxaa lagu siinaya maaha inaad cunto, waxaa lagugu talagalay inaad noqoto qof bulshadu ay ka faa'iido, qof mustaqbalka midho dhalaya inaad noqoto. waalidkuna waxaanu isna ku invest garaysanayaa, wuxuu rabaa inaad waxbaratid ood mustaqbalka qof waxtaraya noqoto. markaad dhalinyaronimada buuxiso, waxyaabaha mujtamaca anfaca waxaa ka mid ah inaad reer samaysid, inaad suuqa gelin. shahwaadka inaad meel cidlaa ku shushubtaa waa wa'di, waa xabaal nololin. waxaa la rabaa meel xalaala inaad la dooratid. saa daraadeed buu nabigu wuxuu leeya ya macshar shabaab man istataaca minkum ulbaa falyatazawaj. dhalinyaroy war ninkii guursan karo guursa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. guurso. guurku macnihiisa waa maxay? macnihiisa koowaad waxa weeyaan inaad mas-uuliyad qaado. reerkan kugu soo biiray waa mas-uuliyad. gabadhu gurigan cusub ay tagtay, awal gurigii hooyadeed bay joogtay, iminka guri iyada la rabo inay mas-uul ka noqoto. nin iyo carruur iyo waxa joogo dhan waa mas-uuliya waxa koowaad ee guurku yahay. shaygiisa labaadna waa nasl, in la helo, in la helo ubad bulshada wax kusoo kordhiya. shaygiisa saddexaadna waa dhowrsooni, in la helo xumaha inaad ka dhowrsanaato. dhowrsoonidu bulshaday dan u tahy. maanta xanuunada ugu badan ee yurub ku faafaa can ariiqi zina bay ku faafaan. xanuunada ugu badan infectious diseaseska yurub faafa, meelaha lagu faafiya ugu tirada badan leh waa galmada xaaraanta ah. waayo ninku hadduu ku koobsado cidduu guursado, gabadhuna ay ku koobsato cidduu guursado, xataa iyaga haddii xanuunu ku dhaco iyagu ku koobnaanaya. laakiin haddii suuqa maanta caawa la wada galo discoteega oo berrina discoteeg kale la wada tago, iyo tobori mid xanuunsanaya hadduu soo galo usbuuc mooy magaaladoo dhame sumoobaysa. laakiin hadduu guursado xataa isaga iyo gurigiisunbuu ku koobnaanaya, waana laga daweyn karaa. idan bulshada dhib bay ku tahay zinada tan iyo waxa kani, bulshada baaba-eeda weeyaan. adigana dhib bay kugu tahay. waxaa guurka loo sameeyey markaa waa maxay? waa lilixsaan, inaad dhowrsanaatid, bulshaduna kaa dhowrsanaato, xumahaaga iyo dhibtaada bulshaduna inuu ka baxo. saa awgeed buu nabigu wuxuu leeyay dhalinyaro ninkii guursan karo guurso. shayga labaad, haddii aanad markaa guursan karaynin, markaa waxoogaagii adduunka aad rabtay isuguma kaa beegmin, guriga yaraa wixii aad doonaysay islamaad helin, ama si kale aad mashquul uto waxbarasho iyo wax kale meel kale raafka kugu haysa, prioritiskaagii kala horreeyey baanad qaar weli buuxin. markaana nabigu wuxuu yidhi facalaykum bisawm, sooma baa la yidhi fa ina lahu wijaa. yani mar kasta dhowrsoonidaada ilaali, markaana isku day inaad soonto, isku day daaqadaada inaad si kale u tafriiqiso, enerjigaaga inaad wax kale ku bixisid. haddaad waxbarasho iyo qiraa'o iyo kan ku bixisid gabadh uma baahanaysid. haddaad se t v-ga iyo dhereg iyo sariirtoo la jiifo ku bixisid, habeen iyo maalin ba waad fakeraysaa, ila shaqo kale ma hayside. caqligaagu mashquul maaha, jirkaagu mashquul maaha. habeen iyo maalba intaad wax cunto haddaad sariirta fadhido una t v-ga daawatid lagu hayn kari maayo.
haddaad se shaqo leedahay mid adduunya mid aakhira wuxuu ku foogan tahay wax akri cibaadayso kac soo shaqo haddaad waxqabad ku maqan tahay energy-gaagi waad use garaysa you don't have excess energy aad meel kale la qabatid ma haysid you are tired waxaad guriga imanaysaa adigoo u baahan inaad seexatid oo cabaar nasatid baad guriga imanaysaa idan ayuha alaxiba abrazu taxadiyaat dhalinyarada hortaagani waxa weeyaan altazyiin waliqraa galbeedka dadka wax lumiyaa waxbay qurxiyaan oo maldahaan discoteega iyo aflaamta iyo waxa kan maxaa boqolka laydh loogu shidaa waa in lagu waalade yani shaygu markaanu xaqiiqo ahayn jirta manfaca dunya aakhira toona lahayn waxaa la isku dayaa in la qurxiyo ilaa qofka caqligiisa lagu qurxiyo ay wax qurux badan la kuula ekaato waxaa lagaga badbaadaa waa inaad ashyaada xaqaa'iqdooda ogaatid xaqaa'iqda waxaa lagu ogaadaa can ariiq alcilmi walcibaada inuu qofku wax barto oo cibaadaysto dhalinyarada waxaa hortaagan oo bulshada waktigan dhibta ku ah waxaa ka mid a dhaqan xumada bulshada ka dhex jirta oo siiba da-yartan dambe bulshadoodu ay tiro badan tahay dhaqan xumooyinka jira dhaqan xumada maxaa lagaga baxaa laba shay altaqwa walcifa inaad ilaahay ka cabsatid oo ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay waman yataqi llaaha yajcal lahu makhraja qofkii ilaahay ka cabsada ilaahay wuxuu sameeyaa ayi mashkila nololeeda ka hor timaada wadda u ka baxo ayi mashkila nololeed